hagaag muuqaalkan waxaanu ku qaada dhigi doonaa Maryan Axmed Dey. Haddaba gabadhan waxay ka mid ah gabdhaha social media loogu jecel yahay muddooyinka ugu dambeeyana waxa ay la soo ifbaxaysay muuqaal cajiib ah. sida muuqatana Maryan Axmed Dey ayaa wax ka bedel ku sameysay jismigeedii, waxaana ay dadku aad markaasi ula fajaceen sida degdega leh ee Maryan Axmed Dey ay isu bedeshay. waynu ognahay jimicsigu inuu ka mid yahay waxyaabaha qofka aadanaha looga baahan yahay si caafimaadkiisa uu kor ugu qaado. sidoo kalena faa'iidooyinka jimicsigu leeyahay ayaa ka mid ah in uu ka hortago xanuunada kala duwan ee ragaadiya qofka bini'aadanka sida dhiig karka, xanuunka sokorowga loo yaqaano, iyo xanuunada halista ah oo ka dhasha baruurta ama qofka oo markaasi xeer badan jirkiisu ay gasho. cudurka kolestaroolka loo yaqaano ayaa ka mid ah waxyaabaha looga hortago jimicsiga. muddooyinka ugu dambeeyana waxaa aada u soo badanaya hablaha Soomaaliyeed oo iyagu ku biiraya qeybaha jirdhiska, sidoo kalena doonayo in ay la dagaalamaan baruurta jirka si ay ugu muuqdaan muuqaalkoodana uu ugu muuqdo dad 15 sano jir ah. Maryan Axmed Dey ayaa ka mid ahayd dadka aada ugu dhiirada jimicsiga, isla mar ahaantana muddooyinka ugu dambeeyay waxay si xawli ah ay u kordhisay una laba jibaartay dadaalkeeda markaasi dhimista amaba ay dooneysay in miisaankeeda ay wax isaga dhinto. waxaana iminka baraha bulshada saacadihii aynu kasoo gudubnay dadku ay wax ka weydiinayeen sida ay ugu suura gashay in miisaan badan ay iska rido. tani markii ay bilowday Maryan Axmed Dey ayaa sidoo kale ka hadashay macalimadeeda ku dhiirigelisay in ay jirkeeda sidaasi u qurxiso, sidoo kalena miisaankeeda ay wax ka rido. muddooyinka ugu dambeeyana hablaha aadka ugu biirayo isla markaana iska qoriya xarumaha lagu jimicsado ayaa aada u la wajibaarmayay. intooda badan waxay sheegayeen in ay doonayaan in ay laba jibaaraan dadaalkooda in miisaankooda ay wax ka dhimaan si ay usoo jiitaan ragga Soomaaliyeed. waxaana dhinaca kale meesha ay ka saarayeen dhaliisha ay ragga haweenka u jeediyaan ee dhanka muuqaalkooda, haddii ay noqon lahayd jirka siiba caloosha iyo xubnaha kale ee jirka dumarka markaasi ay laga maarmaan tahay in haweenku ay iska ridaan, sidoo kalena ay jir dhimis ku sameeyaan. iyadoo aynu ognahay in haweenka Soomaaliyeed marka loo barbardhigo hablaha kale ee caalamka intooda badan miisaan ahaan in farqi weyn u dhaxeeyo, haddana muddooyinka ugu dambeeya waxaa aada u soo badanaya hablaha Soomaaliyeed oo iyagu iska bareejeynayo hablaha kale ee caalamka intiisa kale ku nool ee iyagu xilliyada qaar tartan adag ugu jira sidii ay miisaankooda ku ridi lahaayeen si muuqaalkooda uu qurux badnaado, sidoo kalena ay ula soo haraan miisaan jir yar labis walbana uu soo saaro. waxaase jirtay marka maadaama hablihii ay isugu jireen kuwo iyagu la guursaday, kuwo reerahoodii uu markaasi burburay, hase yeeshee haddana caruur soo maray oo guur soo maray, waxaana jirtay marka marxalado kala duwan oo hablaha Soomaaliyeed lasoo gudboonaanaya muddooyinka ugu dambeeyay haddii noqon dhanka dhaliisha. inkastoo ragguba iyaguna ay jiraan dhaliilo badan oo loo jeediyo ereyo halku dhigyo ay jiraan labada dhinacba la isku weedaarsado farax luga baasto heblaayo sidan iyo saas. ha yeeshee haddana waxaa jirtay marka in heerka dadka Soomaaliyeed iyagu ku biiraya xarumaha jirka lagu dhisto ay aada u siyaadisay muddooyinka ugu dambeeyay. Maryana waxa ay ka mid tahay gabdhaha farkutiriska ah ee halganka ugu jira sidii ay wax uga bedeli lahaayeen nafsadooda, haddii ay noqon lahayd caafimaad ahaan, jir ahaan iyo sidoo kale muuqaal ahaanba. waxaana farqi aada u weyn u dhaxeeya marka Maryan Axmed Dey xilligeedii hore ee imika marka loo fiiriyo isbedelka muuqda ee imika ay dareemeyso iyo xilliyadii hore oo ay ahayd qof aanu markaasi dan iyo xaajo toona ka lahayn miisaankeeda iyo caafimaadkeeda. waynu ognahay faa'iidada iyo ahmiyadda ay u leedahay qofka bini'aadanka in miisaankiisa uu waxoogaa yareeyo, in sidoo kale uu kor u qaado tirada jimicsiga uu sameynayo si kor ugu qaado jirkiisa, dhisitaankiisa, quruxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo muuqiisa kore.
ha yeeshee haddana waxaa jirtay marka caqabado badan oo hablaha ka haystay dhanka jirdhiska, haddii ay noqon lahayd iska dhamidda miisaanka. waxaana caqabadaasi isugu jiray maadaama hable ay ahayeen, haddana waxa ay yareed xarumaha hablaha ay ku jimicsadaan. Ragga ayaa xilliyada hore aada ugu badnaan jiray in xarumaha ay ku jimicsadaan iyagu ay haysteen muddooyinkii ugu dambeeyay. hase yeeshee waxaa wixii ka dambeeyay marka 10kii sano ee ugu dambeysay ama 5tii sano ee ugu dambeysay meesha kasii bixisay in xarumo u gaara dumarka loo sameeyo, sidoo kalena la kordhiyo tirada haweenka ku biirayo xarumahaasi haddii ay noqon lahayd jirdhiska iyo miisaanka, si noloshoodu ay wax uga bedelaan. arrintan ayaa marka waxa ay kor u qaaday maadaama gabdhihii ay ku dhiiranayeen in jimicsi ay sameeyaan, in sidoo kale ay laba jibaaraan waxyaabaha ay ku haminayaan dhanka nolosha caafimaad ahaan. waynu ognahay faa'iidada uu xambaarsan yahay qofka marka uu jirkiisa dhisayo, sidoo kalena jimicsi uu ku jiro ama xarun lagu tababarto, sidoo kalena xarun lagu jimicsado uu ku jiro, almeeto badan uu sameynayo. waxay uga dhigan tahay jir ahaan qofkii markaasi waqti badan jirkiisa uu gelinayo, halkii uu iska fadhi lahaa, istayici lahaa, caafimaadkiisa uusan ka warqabi lahayn, waxyaabo kale oo meel abaal ku daali lahaa. waana tallaabo ku dayasho mudan. inkasta oo bal aynu ognahay dhaliilo badan oo haweenka ka haystay ay jireen dhanka xarumaha inta badan jimicsiyada lagu sameeyo, haddii ay noqon lahayd ujeedkooda jimicsiga iyo waxyaabo badan oo caqabado badan ka haystay, iyo xarumahaasi oo xitaa qalab ku filan aanu ka jirin, haddii ay noqon lahayd qalab dumarku ay ku jimicsadaan kuna laba jibaaraan waxyaabaha ay doonayaan in iyagu ay sameeyaan dhanka jirka, haddii ay noqon lahayd dhismaha. waxaana muddooyinka ugu dambeeyay jiray waxyaabo badan oo dumarka Soomaaliyeed ay isticmaalayeen, haddii ay noqon lahayd dawooyinka inta badan kordhiya jirka ama miisaanka qofka kor u qaada, dawooyinkaasi oo caafimaad ahaan aada looga deerinayay muddooyinka ugu dambeeyay. waxaase sidoo kale dhinaca kale aada u jirtay marka labada dhinacba qaar raadinaya in ay cayil raadinayo oo badigoob ugu jira sidii ay u laba jibaari lahaayeen miisaankooda, halka ay jiraan dhinaca kale cagsigooda kuwo kale oo iyaguna doonaya in miisaankooda ay wax ka dhimaan si ay heer sare u gaaraan, sidoo kalena ay isugu dheelitiraan caafimaad ahaan waxyaabaha qofka laga rabo dhanka miisaanka iyo waxyaabaha kale. muuqaalkan intaa ayaan kusoo koobayaa. waad ku mahadsantihiin. subscribe inoo saara channelkan, like gare muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. haddii aad inoo awoodo waxaad isku daydaa in aad inoo like gareyso oo share gareyso muuqaalkan. waxaan rajeyneynaa in waxyaabo badan aanu halkan idinkugu soo gudbin doono haddii eebba weyne raalli ka noqdo.